بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan way taariikhdu tahay 25 bishii Labaad 2022 waxaan afaafka hore ee degmada Ceelafin ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta wasiir Albani Jibril Somaliland iyo maareeyaha madbacadda qaranka Maxamed Raagi iyo wafdi balaaran oo hogaaminaya wasiirku waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow degmada Ceelafin runtii dadka halkan tuman ilaa saaka adiga ay ku taagnaayeen say ku soo dhaweeyaan xamad furan ku soo dhawow degmadii oo nabad ah wasiir baan ku soo dhaweynaynaa. bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin summa wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin amma ba'd. wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo maareeyaha madbacadda qaranka waxaan ku soo dhaweynaynaa afaafka hore degmada Ceelafin. waxaan ku soo dhawaada degmadii gudoomiyaha hadalka gudoomiyaha noogu dhamaayay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada degmada afaafkii hore ee degmadaynu joognaa waxaanu halkan ugu sii diyaar garoonay inaanu idinku soo dhaweyno idinka oo labadiina mas'uulba ah dadka deegaankan waxaanu idin leenahay deegaankiinii iyo degmooyinkiinii iyo dalkiinii baa timaadeen waa idinku soo dhaweynaynaa qaasha iyo gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo ciidanka iyo dhammaan marti sharafka nin garboodka degmada Ceelafin maayirkii hore dhammaantii way salaaman assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. raalli ahaada annagu waa iska guuraynaynay oo kooda duhurnimo inaad halkan imanaysaan ma baanaan moodaynba waa waqti kulul waa salaadii duhur baa la joogaa qarba weeye wixii shir ah iyo wixii tala ah iyo wixii diiwaangelinta ku saabsan iyo wixii degmada qabyadeeda ah si gooni ayaa wasiirka iyo aniga way nagala hadli doontaan. gudoomiyaha degmada Ceelafin gudoomiye ku-xigeenka maayirka Darweyne afaafka hore ee degmada Ceelafin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan ku faraxsanahay isku duubnidiina iyo inaad noo timaadeen kalgacal noo muujiseen ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala in uu nabadga iyo wanaagga iyo midnimada halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa wasiirkii diinta iyo awqaafta maareeyihii madbacadda qaranka kolley insha Allah waxaanu filayaa hawlaha ay soo baxeen diiwaangelinta kamida hawlaha gobolka kamida waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynay degmada Ceelafin wasiirkii diinta iyo waqaafka maareeyihii madbacadda magaalada baan ku soo dhaweynay iyo gobolkoodii waana mahadsan yihiin waxaana u yimaadeen hawlo qaran diiwaangelinta iyo wixii la halmaala waana ku soo dhaweynaynaa waanu la shaqaynaynaa. maanta waa maalin farxad leh waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa laba mas'uul oo degmada u dhashay degmadan Ceelafin waa wasiirkii diinta awqaafta iyo maareeyihii madbacadda qaranka waxaanu leenahay soo dhawaada waa magaaladiinii aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaad nala ogaataan waxyaabaha jira idinkoo markii horeba nagala warhayay oo aan war idin seegarayn dalka waa lagu nabad qabaa wasiir iyo maareeye wax dhibaataahi ma jiraan haddee xaaladda iyadu aad iyo aad bay u degan tahay golo deegaan ahaan waanu istiilaynaa itaalka iyo shaqeeyaanu isleenahay waa nala arki doontaa waxaanu qabanay iyo waxaanaan qaban. takala wasiir kulleyba waxaan maleynayaa waxa jira diiwaangelintii bay nagu soo aadan uqaashi iyo waayeelkii waxgaradkuna waa ka wada warhayaan dadka waxa weeyaan reer Ceelafin waxay diyaar u yihiin inay isdiiwaan geliyaan cid kasta oo aan ka arkay codbixinta qaadan insha Allah bidnillaahi kariim waayeelkuna waa idin warrami doonaa oo maxay ahaydey wixii jiraba oo idinka warrami doonaan insha Allah bidnillaahi kariim idinkuna waa noo warrami doontaan isxog waraysigaas iyo maxay ahaydey kulanka aan la qaateen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. bini aadmigu sideedaba nolosha ninna xagga wanaagga u wadaya ninna xagga xumaanta u wadaya number bay kala leeyihiin dadka xagga xumaanta u wadaya numberka xagga wanaagga u badaya inta jecel wanaag iyo nabadda iyo nolosha iyo wada deganaanshaha you will never give up weligaa ka sabri
weligaa ha aaminin yaa tan waxba ka hagaagi maayaan weligaa ha aaminin wax badan baa inaga soo qarribmay wax xun baa soo dhacay way ka soo kabatay degmadu haddana way ka kabanaysaa waxaa inoo ballana yaa waxaa isku abtirsan doonta inta nabadda jecel inta nolol la doonaysa Ceelafweyn baa isku abtirsan doonta adduunyadu way soo martay qaabkan wuxuu xalinayno iyo qaabka marka hore aynu uga hortagayno labada qodob haddaynu iska gufayno wax badan baa inoo qabsoomi karaa Ceelafweyn iyadoo dhibtaasi ay ka taagan tahay haddana xaggii horumarka wadadii horumarka cagta saartay iminka deegaan cusub baa gole deegaan cusub baa hesheen warka aan hayo wax badan bay qabteen waana isku duuban yihiin kaliya waxaa loo baahan yahay Ceelafweyn dadka waxay dheeraan jirtay waxay lahaan jireen odayo isku duuban oo horumarka Ceelafweyn ka shaqeeya oo iyagu intay afka isa saaraan talada ay go'aamiyaan reeraha ku fuliya intiina waa joogtaa lama waayin cid talisa lama waayin ciddii maqli lahayd baa loo baahan yahay insha Allah taala annagu kolle waxaan u soo baxnay oo kamida barnaamijkayga marka aynu xog waraysigeena iyo arrimaha nabadda iyo horumarka inaynu ka wada